السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا سو دوادا إن شاء الله تعالى هربنا إن أيقنو ترامب dalkan Mareykanka iyo Trump waxba kala haysta markasto wuxuu saxiixaa dekreeto uu wax ku beeninayo laakiin dekreeto kasta oo uu saxiixo madaxweynaha waxa ka daba timaada court ama maxkamad ayaa mar walba go'aan ka daba gaarta marka dekreetadii hadda ugu dambeysay tii ugu horeysay aan ka rabaa oo uu saxiixay waagi dhaweyto oo ahayd in qaxootiga laga joojiyo inay dalka soo galaan oo executive order ka ahayd ayaa shalay oo ahayd Arbaco galabkeedii waxaa ka hor istaagay judge federal ah oo ka howlgala magaalada Seattle, Washington. Judge-kaas ayaa ka hor istaagay. Judge blocks Trump's executive order suspending refugee admissions to the US. Dalkan Mareykanka wuxuu sheegay Mr. Trump in qaxootiga laga joojiyo si ay u soo gelin dalka. Marka executive order-kaas oo ay uu saxiixay odayga waxa ay dhibaataysay dad fara badan. Dadkaas waxaa ka mid ahaa 10,600 oo qof oo wax walba maray interviewgii maray JVA-dii soo maray imtixaankii soo maray haddana oo diyaar u ahaa flight dadka barkiis waxay ku jireen hataa xerada gool oo waxay ahaayeen flight sugayaal dadkaas oo dhan waxaa affect gareeyay oo saameyn ku yeeshay dekreetadii uu saxiixay madaxweynaha oo uu ku joojiyay wax allaala wixii qaxootiga sheeganayay haddaba taas markay dhacday waxaa ka daba yimi oo iska taqaanaan dalka Mareykanka iyaga madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba cabinetkiisa waxay leeyihiin executive order laakiin executive-ka waxaa ka soo horjeeda judicial-ka oo maxkamadaha ah marka maxkamad ku taala Seattle, Washington oo federaal ah judge-ki joogay ayaa ka hor istaagay shalay wuxuuna ogolaaday in qaxootiga ay soo galootiga ah oo arrinkan uu affect gareeyay oo flight sugayaalka ah badankood in loo ogolaado dalka in ay soo galaan so ninkan judge-ka wuxuu sheegay in madaxweynaha uu xaq u leeyahay in official executive order noocaas oo warqada noocaas oo awoodda noocaas uu leeyahay uu saxiixi karo laakiin uusan awood u lahayn arrinkan lagu ogolaanayo galootiga qaxootiga to suspend refugee admissions awooddaas isaga iskama lahu dhahay inkastoo authority badan awood badan uu leeyahay haddana Congress-ka intuu ignore gareeyo ama aqalka hoose ee dalka Mareykanka looga taliyo intuu ignore gareeyo madaxweynaha dekreeto uu wax ku joojinayo iskama saxiixi karo taas way ka soo horjeesteen sidoo kale waxa uu sheegay in haddii qaxootiga dalkan soo galaya la joojinayo in ay tahay in uu soo maro Congress-ka oo la horgeeyo baarlamaanka dalkan Mareykanka sanadka uu ansixiyo kadib madaxweynaha uu saxiixo sida sharciga oo caadiga uu yahay waxa kale oo uu sheegay ninkan judge-ka ah oo shalay arrinkan sameeyay systemska Mareykanka judicial-ka executive-ka iyo legislative-ka saddexdaas ay u kala baxaan legislative-ka waa taqaanaan waa Congress-ka judicial-ka waa maxkamadaha executive-kana waa madaxweynaha iyo White House-ka iyo cabinetkiisa intaba so waxaa ka jira u dhahay separation of powers awoodaha waa la kala leeyahay wax intaa ka hooseeya oo aan ogolaan karnana ma jirto ninkan judge-ka waa nin dhalinyaro ah waxaana xilligii magacaabay dalkan Mareykanka maxkamadaha federaalka ah nimanka judge-ka ka noqonayo waxa ay magacaabo madaxweynaha so ninkan Biden ayaa magacaabay xilligiisii marka madaxweynahaas ayaa soo magacaabay laakiin nin dhalinyaro u eg yahay oo kulli magaciisa markaan fiiriyana nin madow u eg yahay White House injunction blocks key components of Trump's day one executive orders wuxuu ka joojinayaa baa la yiri
qaybihii ugu waaweynaa executive orderkii ama warqadii sharciga ahayd oo uu saxiixay madaxweynaha Donald Trump oo ku saabsaneyd refugee resettlement groups hataa lacagtii waxaa laga jaray qolyihii qaxootiga markay dalka Mareykanka imaanayaan soo dhaweyn jiray oo dalka keenayay waxay ku biireen lacagihii la jaray ayay arrinkooda uu ku biiray so this arrinkan waxaa maxkamad la aaday 5 qoys oo qaxooti ah oo ay ku jiraan qoys waxaan ka rabaa Congolese ah Dr. Congo ka imaaday Democratic Republic of Congo ka imaaday marka dadkan waxay ku doodayeen familkeena ila looyarey lahaayeen familkeena waxay yiraahdeen wax walbo Nairobi ku sugan yihiin bay yiraahdeen way mareen wax kasto xerada gool baa lagu xareeyay oo dadka laga soo qaadi jiray flight sugay ahaayeen caafimaadkii everything else way soo mareen marka dadkan waxay yiraahdeen everything oo ay lahaayeen way iska gadeen gurigii ay deganaayeen oo kirada ugu jireen liiskii way kansaleen because dad wax sugay ahaayeen oo soo bixi lahaa flight suga ahaa haatee waxa alaabahooda dhanba waxa uga soo haray dharka ay boorsooyinka ku wataan kaliya wax kale ma ay haysaninba so because of this kaligoodna ma aha qoysas badan oo Afghanistan ka imaan lahaa ayaa iyagana sidaas oo kale ay ku dhacday Afghanistan maadaama safaarad Mareykan aysan joogin dadkan waxaa la geeyay wadanka Qatar marka la geeyay Qatar baa safaaradda Mareykanka ee Qatar baa process garaysay wax walba waa loo dhameeyay kadibna waxaa ku dhacday qabta Trump uu ku sameeyay executive orderkii uu ku joojinayay Mr. Trump ayaa ku dhacay uu ku joojinayay qaxootiga in dalka Mareykanka ay iman karaan waana day 1 January 20th maalinkii la ansixiyay ayay ahayd so administrationka odayga wuxuu dhahay Donald Trump awood uma laha inkasto oo hadda ka hor ay ku dhacday tookadiisii hore oo madaxweynaha uu ahaa madaxweyne Trump waxaa ku dhacday sidan si lamid ah ayuu wuxuu sameeyay go'aan noocan uu qaatay qaxooti dalkan 6 wadan oo waagi uu ka mamnuucay sida Syria Soomaaliya Iraq oo adiga islaamka u badnaa 6 wadan oo uu ka mamnuucay waxaa ka hor istaagay judge Hawaii state ka la dhaho degan judge-kaas ayaa amarka soo rogay oo ku ansixiyay in wuxuu ansixiyay in qaxootiga ay soo gali karaan in a matter of fact dad fara badan oo Soomaaliya baa ka faa'iideystay oo soo galay dalka xilligaas iyada ah tookadana waxaa hor istaagay executive orderkiisa judge kale oo dhalinyaro ah oo stateka Seattle Washington degan judge-kaas saan idin sheegay waxa uu ku saleeyay doodiisa in la kala separate gareeyo executive-ka judicial-ka iyo legislative-ka oo laga rabo doodan haddii ay soconayso ama arrinkan uu samayn karo madaxweynaha uu rabo inuu sameeyo waa inuu u soo maraa wadadii saxda ahayd madaxweyne intuu saxiix iska soo qaato wixiisa kala kacsanayo meeshan kama shaqaynayso ayaa lagu yiri systemkana waa inuu soo raacaa madaxweynaha inta ka horeyso marka order buu bixiyay judge-ka oo injunction la yiraahdo injunctionka uu bixiyay orderka ah waxa uu sheegayaa in dadka laga bilaabo hadeer ay u furan tahay ay soo gali karaan until madaxweynaha uu go'aan ka gaari doono oo ama wadadii saxdeed uu ka soo mari doono ama injunctionkan uu deyn doono so waxa dhacday marka dawladda kuwa ka socday madaxweynaha xaqiisa matalayay Donald Trump baan ka hadlaynay baa waxay damceen inay appeal qaataan oo raacfaan ay ka qaataan arrinkan so appealkii ay qaadan lahaayeen judge-ka wuxuu ku dhahay marka hore waa inaan injunctionka qoraa oo aan injunctionka sameeyaa kadibna marka injunctionka sameeyo oo aan ogolaado horta marka hore in dadka ay soo galaan orderka aan bixiyo ay soo gali karaan kadib ayaan waxa idin ogolaan doonaa buu dhahay
in aad go'aankan appeal ah ka qaadataan marka go'aankan waxaa kale oo aad u support garaynayo garab taagnaa waxaa garab taagnaa dadka u dooda arrimaha soo galootiga ee dalkan Mareykanka qolyaha u dooda ayaa aad u garab taagnaa sidoo kale waxaa lacagta laga jartay dadkii ama hay'adihii NGO-yada ahaa oo non-governmental organization-ka ahaa oo dadka keeni jiray kana caawin jiray inay sameeyaan resettlement oo ay dalka Mareykanka ay soo degaan kuwaasna lacagtii uu ka goostay oo waxay gashay lacagihii la gooyay waxaa kale oo jirta programkii federaalka ahaa oo lacagta uu ka jartay Donald Trump oo executive order-ka uu uga jartay judge ayaa wuxuu soo rogay amar ah in lacagtii uu ka joojiyey grantiga ahayd spending and foreign assistance lacagihii dalka dibaddiisa Mareykanka lagu caawin jiray iyo lacagihii kale oo la bixin jiray oo federal grantiga ahayd oo lacagta freega oo dowladda federaalka Mareykanka ay bixin jirtay executive order-kii uu ku joojiyey madaxweynaha maxkamad ayaa hor istaagtay oo block garaysay inkasta oo la soo sheegay in administration-ka dhaqan gelinin go'aankii iyo amarkii ka soo baxay maxkamadda si bareer ah oo cad bay u diideenba go'aankii maxkamadda ka soo baxay inay qaataan laakiin go'aanka maxkamadda ka soo baxay ma diidi karaan haddii ay yihiin hataa executive-kii oo madaxweynaha iyo qolyihiisaba ay isku soo raaceen arrinkan ma diidi karaan so this order waxaa laga yaabaa in ay ka cagajiidaan intay appeal ka helayaan laakiin odaygan judge-ka ah ninkan dhalinyarada ah oo soo saaray go'aankana qaatay soona saaray go'aankan qaxootiga in la soo dhoweeyo dalkana ay soo geli karaan madaxweynahana uusan awood u lahayn dalka Mareykanka waxaa ka jiro shuruuc adag baa ka jira oo system dhisan oo kala hooseeya oo kala koreeya sida saddexdaas power oo kala goonida ah in mid ku xadgudbi kara uusan jirin iyo in mid wax isaga takrifali kara oo kuwa kale ay u yihiin waxa loo yaqaano checks and balances so checks and balanceska way isbalance garanayaan systemyada horaa looga fakeray 1798 markii dastuurka qoranayeen bay arrimaha noocan inay iman doonaan one day bay kasii fakareen si loo kala qaado awoodaha marka judge-kaas Seattle jooga wuxuu awood u leeyahay in madaxweynaha go'aanka uu qaatay uu si toos uga hor imaado oo uu saxo wixii executive-ka ay qaldeen ayaga oo judicial-kii ah oo maxkamadihii ah oo kala sareeya oo waliba waxay leeyihiin waa iska taqaanaan maxkamadda hoose oo district court-ga ah appeals court-kii oo ku xigay iyo waxay leeyihiin supreme court maxkamadda ugu sarreysa oo go'aanka ugu dambeeyo decisionska badan ee dalkan Mareykanka la qaato iska leh so ninkan odayga ah awood wuxuu u leeyahay in uu qaxootiga u fasax intuu siiyo dalka ay ku soo xaroodaan inta dowladda ay ka qaadanayso appealka dadka marka loo danaynayo waxaa u badan baa la yidhi dad Afghanistan ka imaanayay iyo Syria iyo wadamada hadda dagaalada ay ka jiraan ayay ka imaanayaan dadkan badankood so dadkan ilaa 10,000 oo qof bay ahaayeen dadka executive order-ka ay affect garaysay oo dhibaatada ay u geysatay oo flightskoodii ay ka kansashay so ilaa waxay ahaayeen numberka intaa dhan 10,000 oo qof 10,600 oo qof bay ahaayeen actually laakiin 10,000 oo qof baan iska leenahay dadkaas in the next few weeks waxaa laga yaabaa in ay soo galaan dalka Mareykanka because waxaa la sheegay in background check-oodii iyo check-gareyntoodii waxoodii ay ka soo gudbeen oo vetted ay yihiin dad oo hore loo soo baaray in ay mareen security-gii iyo wax walbo in sidoo kale ay mareen caafimaadka marka waxa laga walwalka ugu faraha badan wuxuu ahaa dadka alaabahoodii iska iibiyey oo sugayay inay soo fly gareeyaan iyo dadka caafimaadkii
intay mareen oo horey ay u mareen markay caafimaadkii mareenna waqtigii uu ka dhacaya caafimaadka joogay. So those two concerns ayaa waxay keeneen qolyahan advocateska u dooda dadka immigrantska dalka Mareykanka soo gala dadka u dooda ayaa go'aankan waxay qaateen in ay maxkamad la aadaan ayaga oo support ka helayo 5 famil oo dadkooda ay qabta ku dhacday iyo famil kale oo isagana Congolese ahaa oo muhiim u ahaa in ay soo bandhigaan meesha wixii ka dhacay iyo cabashadii ay qabeen. midda kale judge-ka waxa uu xooga saaray in uu ka hadlo arrinka family reunification-ka waxa la yiraahdo in qoysaska la isu keeno like nin inaag isqabay oo kale haddii ninka u xareeyay ama naag xaaska ay u xareysay gabadha ay u xareysay ninka tookadii hore Trump dhib badan ayaa laga maray timekay ku dadka ku dheereynayeen qofka hore lagama keenaynin laakiin tookadan hadeer sidii oo kale rabaan laakiin judge-ka wuxuu xooga saaray in laga hormariyo family reunification-ka in familada la isu keeno oo de waalidkii carruurta loo keeno carruurtii waalidkii loo keeno in xaasaska isqaba la keeno dadka isu xareeyay oo de kolley processka sugayayna in loo dedejiyo. So ninka judge-ka ah Seattle Washington ayuu joogay go'aankanna isagaa qaatay go'aankanna wuxuu ka soo baxay district court-ka oo federaalka ah madaxweynaha waxaa laga baloogay executive order-kiisii amarkiisii ahaa wax qaxootiya oo dalkan soo geli kara ma jiro. sheekadaas waa isku dhamaatay qaxootiga way soo galayaan sida ninkan judge-ka uu sheegay until ilaa laga gaaro go'aan kale oo ama uu ka soo baxayo appeal court la aado ama supreme court-ga ba isla aado maxkamadda ugu sarreysa dalka oo iyada ereyga aan looga daba dhufano ereyga ugu dambeeya leh laakiin for now qaxootigii waa la furay dadka waxaan ugu bishaareynayna in judge-kaas blockage-ka uu ku sameeyay ama inuu block gareeyo oo uu ka hortago go'aankii Trump oo ahaa qaxooti dalka Mareykanka soo geli karo ma jiro wiil baa u soo baxay xabadka u garaacday oo yiri qaxootiga way soo galayaan awoodeedina leh system ahaanna de ka awood sareeya madaxweynaha saan idin sheegayna tookadiisii hore 6 wadan oo islaamka ah markuu joojiyay waxa 6 wadan ba u furay judge Hawaii jooga oo district court so judge Hawaii jooga oo district court si tan oo kale ah ayaa wuxuu u furay 6 wadanba inay soo gali karaan. waxa ogtiin xilligii Trump oo hore in dad badan oo Soomaaliyeed ay soo galeen so 6 wadan oo islaamka ahaa waxa ka furfuray oo soo daayay judge maantana 10,000 oo qof oo maalinkii ugu horeysay oo markii la dhaariyayba madaxweynaha Trump uu ku soo rogay in dalkan wax refugee resettlement ah ama wax refugee settlement ah oo ka dhici kara in aysan jirin dadkii flight sugayaasha ahaa oo masaakiinta ahaa oo xilliga dheer qaxootiga ugu jiray inay one day maalin on dreamkooda ama riyadooda ay ka suurta ay ka dhabeeyaan oo ah dalkan Mareykanka inay imaadaan buu wuxuu ka jabiyay qalbiga laakiin ninka odayga ah baa niyadda u dhisay oo ka hor imaaday go'aankii madaxweynaha. salaamaya waa mahadsantihiin daawashadiina daawateen programka. Don't forget to like, subscribe and share inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much.